dayactir la'aanta dugsiyada Qur'aanka Kariimka iyo masaajidada magaalada Beledweyne ayaa saameyn ku yeelatay bulsho badan oo ku sugan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Beledweyne, taasi oo sabab u noqotay wadooyinka soo gala oo noqday godad waaweyn iyo burbur xooggan oo soo gaaray dhismaha masaajidada iyo dugsiyada Qur'aanka. Qaar ka mid ah culimada magaalada Beledweyne ayaa baaq u diray muslimiinta meel kasta oo ay joogaan in laga qayb qaato dayactirka burburka masaajidada iyo dugsiyada Qur'aanka Kariimka lagu barto ee ku yaala magaalada Beledweyne. Waa la socotiin in biyo ay la galeen oo guryo badan iyo dugsiyo badan ay burburiyeen. dugsigan hadda gacantayda aan ku ishaarayo waa u jeedin soo u yaalo ilmaha dhigan jiray ugu yaraan 60 ilaa 70 baa dhigan jirtay. haddana waxa way meel ay wax ku dhigtaan ilaa yihiin marka dadka muslimiinta waxaan u sheegayaa sadaqada maanta aad la baxdiin ayaad biri ku moodaysiin. marka wax sadaqaysta dugsigaas wuxuu u baahan yahay in la dhiso oo ummadaas loo dhiso ilmahaas muslimiinta inay wax ku bartaan. sidaa u jeedna meesha aan taaganahay waa dugsi iyo masaajid isku xiran ay burburiyeen biyihii imaaday oo webi Shabeelle ka imaaday. sidaa daraaddeed dugsiga iyo masaajidka dadkii waxa uu qaban lahay oo u kaalmeyn lahay waa dadka muslimiinta oo u kaalmeynayso. sidaa u jeedaan dugsigu waa burburay, wadada sidoo kale, masaajidkana sidoo kale. marka ummadda muslimiinta waxaan ku baraarujinayaa meel kasta ay joogaan masaajidkaas iyo wixii ka agdhow dugsigii macalinkiisii inay la soo galab galaan. annagana meel kasta oo aan ka joogno waan ka soo garab galaynaa insha Allah. masaajidkii hadda dugsiga u diidaan inkastoo dugsigii aad u burburay waxbay ku beeneen meel ay cadceed la fadhiyaan. dadka muslimiintana meel walba ay joogaan in ay khayrka u tartamaan aakhiri adduun wa ajri xasanaad oo ka siiyo. insha Allah waxaan ka codsanayaa qof walba oo muslim ah inuu meeshaasi tawraacad ka geysto. dugsigaasi sidiisii loogu soo celin lahay ardadaasina ay sideedii wax ugu baran lahaayeen hadduu Rabbi qadaro. Sharmaake Abdullaahi Daahir, wararka Saab TV, magaalada Beledweyne.